بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashiradeenna imtixaanaha ahay. maanta halkan waxaan kusoo gudbinayaa sida folderka iconka looga bedelo ama sida designka ama shapeka loo yahay folderka sida looga bedelo. markaas sida looga bedelo waxaan maraynaa istaabiyadan inta ka muuqda ayaan maraynaa. folderka waa kor tagaysaa. for example hadduu folder ku abuuran yahay, folder ku abuuran ayaa kor tagaysaa. waxaa ku dhufanaysaa red click ayaa dhehaysaa. red click marka dhahdan property ayaa ka dooranaysaa. property markaa ka dooratid waxaa kasii dooranaysaa marka inbox ama waxaa kuusoo baxaya qaanada kuusoo baxayso. qaanadaas waxaa ka dooranaysaa customize ayaa ka dooranaysaa. customize markaa ka dooratid dan kabacdi click ayaa waxaa ku siinaysaa change icon oo qaybta ugu hooseysa ah. dan kabacdi waxaa ka dooranaysaa marka designo tiro badan ayaa ku jira iyo qaabab tiro badan ku jiro. kaa jeclaysataa ka dooranaysaa marka kii ku qanciyo. okay, ayadoo practical subinaynaa. waa kana folderka noo abuuran yahay. marka right click ayaan dhahaynaa, then properties ayaan kasii dooranaynaa, customize waa kana, then kabacdi change icon. marka waa kana qaabka nii sheega waa designo tiro badan meeshan ku jiro. designka ku qanciyo ayaa ka dooranaysaa. tusaale for example geedkan aan ka dooranaynaa dadkan. okay dhahaynaa, then apply. okay, soo noqda folderkii uu isbedelay. haddana sidii hore haddana qaab kale waa ka dooran kartaa. waa kor imaanaysaa, customize aad dhehaysaa, change aad dhehaysaa. waxaa ka dhigaynaa sida computer ka dhigaynaa diska. okay, apply waa kasaa. okay, marka sidii horena usoo celi kartaa. waa marka daarid sidii horena usoo celi waxaa imaanaysaa properties aad tagaysaa, then kabacdi customize kasii dooranaysaa, change icon. waa kana folderka sidii hore usoo celi kartaa. okay, waa mahadsantiin.